dhawaada barnaamijka xindaabka ciyaaraha oo goorahan oo kale aad ka daawataan toddobaad kasta maalinta Khamiista Goobjoog TV. waxaan idin soo gudbinaa wararkii ugu waaweyn ee suuqa kala iibsiga, kulamadii la ciyaaray iyo wararkii ugu waaweyn ee ciyaaraha gobolada. toddobaadkan waxaan diiradda ku saarnaa barnaamijka xindaabka ciyaaraha horyaalka Soomaaliya Premier League fasal ciyaareedka 2017-2018 oo Muqdisho ka furmay. Haddaba qaabkee loo ciyaaray yaa guuleystay iyo sidoo kale natiijooyinkii ka soo baxay kulamadii la ciyaaray horyaalka ayaad ku daawan doontaan barnaamijka xindaabka ciyaaraha. sidoo kale kabtankii hore kooxda kubadda cagta Hagen Jibril Xasan Fariid oo ka sugan dalka Turkiga ayaa fariin u soo diray kooxdiisa kubadda cagta Hagen oo bandhig wanaagsan ku bilaabatay horyaalka. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaan idinkugu hayaa xindaabka ciyaaraha. daawadayaal soo dhawaada. soo noqod wanaagsan daawadayaal, intaas waxay ahayn qodobada barnaamijka xindaabka ciyaaraha. haddii aan guud galno barnaamijka xindaabka ciyaaraha, toddobaadkan waxaa si weyn u gorfayn doonaa horyaalka Soomaaliya sanadkan oo ka furmay caasimadda Muqdisho gaar ahaan garoonka Banaadir. haddaba horyaalka waxaa lagu furay kulankii koowaad kooxaha kubadda cagta Dekedda iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Waxool. Dekedda waa kooxdii sanadkii hore kusoo guuleystay horyaalka dalka. haddaba kulanka kadib waxaan la hadalnay qaar ka mid ah ciyaartooyda. kooxaha kubadda cagta Dekedda iyo Waxool ayaa daafuray horyaalka Soomaaliya Premier League fasal ciyaareedka 2017-2018 waxaana kulan ciyaareedkan martigeliyay gegida Banaadir ee degmada Cabdulcasiis. labada koox ayaa soo bandhigay ciyaar ku dheehan weerar iyo weerar celis, waxaana qaybta hore lagu kala maray hal gool iyo eber oo ay ka horkacayaan wiilasha kooxda Dekedda oo ah kooxda horyaalka xafidanaysa. waxay noo ahayd ciyaar muhiim ah maadaama horyaalka 2017-2018 uu furmayay. runtii kooxdaana waa koox wanaagsan. Waxool waa aragtay ciyaarta la ciyaaray iyo sida ay ku dhamaatayba. wax walba ay ku soo gabagabowday ciyaarta ay noqotay hal iyo eber. waxaa noo ahayd muhiimadda sida aan ku heli lahayn saddexda dhibcood ee bilowga horyaalka. markii la isku soo laabtay labada koox ayaa garoonka la soo galay ciyaar ku dheehan weerar iyo weerar celis, laakiin kooxda kubadda cagta Waxool waxaa calaamadda casaanka ka qaatay ciyaaryahan Mursal Aadan kaas oo qalad ku galay Daawud Cabdullaahi Tubaal. maanta hadda anaga isfahankeena maanta aad buu fiicnaa. waa dareemi kartaa koox dhan oo macnaha champion marka la dheelaysid dhibaatada ay leedahay. sidaas darteed maadaama Dekedda ay koox champion ahayd aan la dheelin hal eber. dhammaantii kulankeena koowaad aan la dheelin kooxda championka ah ee Dekedda ciyaar aad u fiican ayaan soo bandhignay. dhammaantii nasiibkeena ayaa iyo halkaas goolna loogu bishay ayaa qornay. natiijada kulanka ayaa ku soo dhammaaday hal gool eber oo ay guusha qaateen wiilasha uu hogaamiyey macallin Yuusuf Cali Nuur Cali ee Dekedda. waxaanu jecelnahay inaan daafacno oo aan noqono markii labaad horyaalka hadduu ilaahay yiraahdo. ciyaartooydii tagtay inaan buuxino ayaa mar walba isku dayeynay, wayna timid inay ciyaartooy kale ay soo bedelaan. waxaan jecelnahay ciyaartooyda timidna iyagana sidii shalay kuwaas ay howl u qabteen inay u qabtaan. calaamadii ugu horeysay casaanka waxaa la guddoonsiiyey laacibka kooxda kubadda cagta Waxool Mursal Xuseen Aadan. ciyaaryahan Mursal waa ciyaaryahan muhiim noo ahaa kabtanka kooxda. waxaan rajeynayaa booskiisa inaan kasoo kabno, laakiin roosada oo qaatay roos aad noo saameynaysa waa anaga ahaan. daawadayaal warbixintaasna waxay ku saabsaneyd furitaanka horyaalka Soomaaliya iyo kooxda kubadda cagta Dekedda oo guul ku bilaabatay horyaalka. haddaba kulankii labaad waxaa fooda isdaray kooxaha kubadda cagta Gaadiidka iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Badroolka. sanadkan ayaa loo bixiyay magacaas, waana kooxda kubadda cagta Safana oo usoo dalacday horyaalka heerka labaad. inkastoo sanadkii lasoo dhaafay ay ku ciyaaraysay magaca Safana, laakiin sanadkan waxay qaadatay magaca Badroolka. waxa uu ahaa kulankii labaad horyaalka Soomaaliya kol ciyaareedkan. waxaa gegida Banaadir ku wada dheelay kooxaha Badroolka iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Gaadiidka. Badroolka sanadkan ayaa loo bixiyay magacan, laakiin waa kooxda kubadda cagta Safana oo kol ciyaareedkii tagay ka soo gudubtay horyaalka heerka labaad ee dalka. labada koox waxay soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleystay ay u riyaaqeen taageerayaasha labada koox. kulankan wuxuu ku dhammaaday barbaro gool la'aan ah oo ma aysan dhicin inay cid guusha ay qaadato. ciyaartii kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ciyaartooyda iyo macallimiinta iyagoo ka hadlay dareenkooda iyo sida ay u arkaan kulankoodii koowaad ee horyaalka Soomaaliya sanadkan. 100% laakiin nasiibkaana diiday. waxaan rajeynaynaa kooxaha kale oo hadda nagu soo aadan Dekedda ka mid tahay inaan guul ka helno 100% insha Allah. waa rajeynaynaa kooxda mugtaa balooniga sidiisaba cadi madow waaye. koox yaro oo hadda oo Serbi ka timid waa kooxdan hadda waxa oo hal isla galnay. marka waxaan rajeynaynaa ciyaar aad u qiimo badan yahay
marka kulli kulanka dambe insha Allah xarijeynayna inaan badin insha Allah rajeyna kulmada soo socda inaan wax badan iska bedeli doono diilaan gaarsiin insha Allah xil ciyaareedkan waxaan tiijinayna inaan meel fiican boos fiican inaan qabsano daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka xindaabka ciyaaraha wuxuuna idinkaga imaanayaa goobjoog TV haddaba kulankii labaad ee arkeen kooxaha kubadda cagta gaadiidka iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta batroolka wuxuu ku dhammaaday barbara gool la'aan laakiin ciyaar xiiso badan waxaa wada yeeshay naadiyaasha kooxaha kubadda cagta dekada kooxaha kubadda cagta Hagen iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman waxaa iska hor imaaday ciyaartooy iyo macallimiin soo kala leelisay labada koox ciyaartan waxay ku soo dhamaatay 4 gool iyo 1 oo ay guusha ku qaateen xidigaha kooxda kubadda cagta Hagen waxaana sanadkan kabtan u ah laacib kore kooxaha Jenya iyo soo kale kooxda kubadda cagta LLB Jenya Cabdicaziz Maxamed Catoosh ciyaarta kadib waxaa warbaahinta la hadlay macallimiinta iyo soo kale ciyaartooyda naadiyada kubadda cagta Hagen iyo Elman ayaa wada ciyaaray kulan ciyaareedkii saddexaad horyaalka Soomaaliya Premier League fasal ciyaareedka 2017-2018 iyagoo ku wada dheelay gegada Banaadir ee degmada Cabdicaziz qaybtii koowaad ee dheesha ayaa lagu kala baxay ciyaartan waxaana 4 gool iyo eber loogu naxsaday xidigaha soo qaatay koobabka General Daoud iyo Somali Super Cup ee Elman waxaana qaybta hore goolasha u kala dhaliyay xidigaha kale ah Niyazi Ronaldo Yasin oo horey u soo ciyaaray kooxda Elman isagoo 3 leey ka dhaliyay kooxdiisa hore Elman halka laacibka lagu magacaabo Mahad Muxudiin Xaaji Mahadyare isagana uu goolka kale u dhaliyay qaybtii koowaad kooxdiisa Hagen Elman ma ahayn macnaha koox macnaha awood u leh mar walba inay goosh imaado balse wax walba waa cadi madow kubadda cagta way guuleysan doonaan insha Allah Elman kubad fiican ay ciyaareen nasiibka ma mooyee aad ugu faraxsanahay in la guuleysto kooxdeeda Hagen maalintii koowaad taageeraha Hagen mar walba farxada ku imaan doontaan insha Allah muhiimadeena waxay ahayd kulanka koowaad inaan ku furno gool aadan u mahadcelinayaa maamulka kooxda Hagen iyo macallinka oo runtii aad noo dhiirigeliyay in kulankan aan gool keenno 100% لا عيار والفينال هي نوتاي وأنا جعله هنا قولي والله نين هاد شقف يعني هو قبته وأنا كم هتسني هاي قولش إيمان تقولش أنا جارسي كلش كسر لابتي قابتي لبعض كلنكا kooxda Elman ayaa soo bandhigtay ciyaar ku dhahan weerar balse daqiiqadii 63aad waxa goolka calanka u dhaliyay laacibka Rejenyo Anwar Sid Ali inkastoo goolkaas ka hor kooxda Hagen la siiyay calaamada casaanka waxaana ka qaatay Ahmed Sakhir oo daafac uga ciyaar aysan ahayn in ciyaartooyda oo saaxiibada iga soo horjeeda amisna magacaas laakiin rag ayaa xifaalta ingal dhaxay runtii inaanan aamida waxaan saar inaa 3 dhibic aan qaato runtii waana ku guuleystay waana qaatay way sababtoo ah intimaamkii wuxuu ahaa 3 dhibic aan qaato laakiin aniga ciyaartooyda iga soo horjeeda aniga lama xifaaltimin way sababtoo ah shalay saaxiibada ay maanta saaxiibada waa garabka ay ka dhiilayeen kabtan ayaa ahaa laakiin balse rag ayaa xifaalta iga dhaxay laakiin waxaan tusay maanta inaa aniga wiil aldisi garoonka aan joogi karo amisna aan isku hay karo Elman waxaan u dirayaa good team ayaan dhigi karaa way sababtoo bunoon fiican ay dhiileen isku day fiican ay sameeyeen runtii meeshii ka wada ayaan dhiilahay laakiin balse first one waaye inay ku niijawan ma aan kulan ciyaareedkan ayaa ahaa midkii u adkaa ee la iska dhaliyo goolal badan waxaana kooxda Hagen ku guuleysatay 4 gool iyo 1 inay ku dharbaaxdo kooxda kubadda cagta Elman oo sanadkii tagay mise kul ciyaareedkii tagay soo hanatay koobka General Daoud iyo Somali Super Cup diyaadaan ugu faraxsanahay guulka maanta ay gaaray waxay tahay bilow wanaagsan inoo tahay maadaama koox weyn 4 iyo 1 uga badinay waxa isleeyna dhanka fiican ay soo dhigin doona hadii Ilaahay raahdo badan uu ka bedeli karaa sababtoo ah bilow fiican uu noo yahay koox weyn maadaama 4 uga badinay kooxihii kalena waa isdheena intaas in ka badan ila gaarsiin karno wili daawadayaal waxaa daawanaysaan barnaamijka xindaabka ciyaaraha wuxuuna idinkaga imaanayaa goobjoog TV toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah laacibka hore kooxda kubadda cagta Elman iyo kabtanka qaranka Soomaaliya Xasan Cali Roobe Bay oo dhawaan ku biiray kooxda kubadda cagta Hagen Xasan soo dhawow marka hore ka waran sidoo ku bilowday horyaalka Soomaaliya sanadkan oo Khaliil waa dhawaa hortaysa idaacadu waa ku dhawahay horyaalka dalka Soomaaliya wuxuu ku bilowday runtii si fiican ayuu ku bilowday bilawgiisna waa ahaa bilaw runtii aad u fiican way sababtoo ah waxa bilowday maalinta Isniinta waxa bilaabay kooxda degada iyo kooxda waxa la bilowday runtii waxa ku soo cilaatay ciyaartaasna hal iyo eber ay ku soo cilaatay oo ku guuleysatay kooxda degada runtii bilawgaas waxaan dhigi karaa bilaw aad u fiican waaye way sababtoo ah xil walba waji oo ku bilowday laakiin sanadkan waxa u maleysay inuu waji fiican oo runtii qurux badan inuu ku bilowday hadda marka fiiriso kulankii dekada way badisay hal gool eber kulankii labaad wuxuu ku dhamaaday barbara gool aan halka kulankii saddexaad idinka 4 gool eber ku arbaxdeen kooxda kubadda cagta Elman maxaa isleedahay natiijooyinkii ka soo baxay horyaalka
runtii natiijooyinka waa kala duwan yihiin koox walbo waxay wixii xagga alle ka qoran ay qaadanaysaa way sababtoo ah degada hal ibri ay ku badisay maalinta gaadiidka ee waxa dhigay madbac badroolka iyo dheelayn gaadiidka ibri ay ku dhamaatay shalay lugta saddexaad ayaa la dheelay Hegan Elman ayaa dheeshay waxaana ku dhamaatay 4 iyo ibri 4 iyo hal ayaa ku dhamaatay runtii waxay ku tusaysaa in farqiga u dhaxeeyo waxyaalaha dhacay waa wax xagga alle ka qoran laakiin koox walba hadba si isku diyaariso wayay hadda maxaad filaysaa kooxda Banana Sport Club oo kale waxaa hogaamiyay macallin Banana Xuseen oo Uganda u dhashay Robert Mianjo oo kooxda Elman hogaamin jiray hadda Hegan hogaaminaya isagana Uganda u dhashay Cabdi John oo kooxda kubadda cagta Elman hogaaminaya iyo macallimiin badan oo qaarkood ka soo shaqeysay ayaa hadda horyaalka ku xifaaltamaya loolanka ee xifaaltanka macallimiinta ka warna sanadkan runtii loolanka iyo xifaaltanka meesha yaal waa runtii wax loo baahan yahay haduusan xifaaltan jirin wax sports maysan jirleen macallin walbana nasiib ayuu leeyahay laakiin waxaan dhihi karaa macallinka Banana Sports Club macallinkeyga Robert Mianjo macallinka degada hogaamiye Yusuf Al Noor saaxiibkeyga macallinkeyga hore ahaa jiray macallinka ay Elman Cabdi John oo hore ciyaartoy isku la jiray hadana macallin noqday iyo macallimiinta kale oo kooxaha kala wadanba runtii waxaan leeyahay nasiib wacan ayaan leeyahay way sababtoo ah gar labo nin ka moodo qoslisiiso way sababtoo ah qofkii alla oo qaaday xagga alle ka qoran tahay laakiin waxa la soo wada dheeraa dadaal wayay marka fiirso hadda kulanka Hegan iyo Elman wada ciyaareen oo 4 gool ibra ku darbaxdeen kooxdii hore sharaxaad sidee ku imaaday guushaas waxay ku timaaday horta iska warqab badan iyo isla hadal badan dadaal badan isdhiirigelin badan ka wada tashi badan hadii ahaleed maamul hadii ahaleed macallin hadii ahaleed ciyaartoy hadii ahaleed taageero kulli dhankaas ayay ka timid way sababtoo ah guushaas inaysan macnaha guul ay u dhigmato Hegan inaysan horyaalka guuleysata amal ay u dhiganto way sababtoo ah guushaas waxaan suugeen wax badan ayaan suugeynay runtii ka warqabkeena iyo isla hadalkeena iyo dhiirigelinteena runtii Ilaahay waa noo sahlay waanu awood ilaansi kulanka micni gooniyo lahaa adigoo kabtankii ahaa Elman ayaa kor imaanaysay iyo sidoo kale Robert Mianjo kooxda sanadka hore soo hogaamiyay iyo laacibka reer Uganda Niazi Ronaldo isagana shalay 3 gool ka dhaliyay micnaha uu xambaarsanaa saddexdaas ciyaartoy laba ciyaartoy macallin oo kor imaada kooxdii hore Elman sidee ah runtii waxay ku tusaysaa macno badan ay xambaarsan way sababtoo macallinka sanadka hore oo anagoo dhahayno macallinka la soo celiyo anagoo dhahayno Niazi la soo celiyo ayaa macallinkii la dhahay dadkaas kharash uma hayno waa iska direena taas markii laga soo tagay kooxdii dib ay ciyaareed u sii wadatay waatii ay ka dhacday kaalinta saddexaad kaalinta afaraad ka dhacday runtii waxay ku tusaysaa meeshaas in lagu gardarooday ciyaartoydaas oo ajaanibta ah oo dalkaas iyo macallinka lagu gardarooday ayay ku tusaysaa waayo sababta kooxda mustawiyad hoose u dhaxay taas midib ay ahayd mid kale hadda isla sanadkan hadda la joogo kooxda xaaladda ku jirto aragtay waayo sababta General Daoud dirqi ku qaaday Super Cup sidoo kale dirqi ku qaaday waayo sababta hal gool oo difaac maanta ku galeysay taas koox ma la dhigi karo waayo sababta waxa la dhigi karaa macnaha rag iska dhicisay in lagu dheelaa garoonka waxay u baahan tahay kooxda 90 daqiiqo inay faceed wax la qaybsato ee goolal kale ay tiigsato wax badan ay raadiso laakiin ma aysan ka jirin meesha way sababtoo ah duldulaalo badan ayaa ka muuqday kooxda adiga runtii marka u soo noqdo guusha shalay aan gaarnay runtii amisna ka tagitaanka oo Elman aan ka tagnay iyo macallinka runtii wax lagu khaldana ayuu ah way sababtoo waa lagu gardaroo dadkaas aniga jeedid waa ka hadlay in Niazi kooxda lagu soo celiyo macallinka waa ka hadlay laakiin balse hadalkayga dhig looma dhigin hadalka uu wuxuu soo ekaaday in la dhaho dadkan qarash uma hayno markii tiid la soo jilaacanay kulli kooxda markaas mustawiyada xaaladeeda iska xumeed runtii General Daoud markuu dhamaaday waxa ay soo baxday in horyaalka kooxda laga fasaxo ayaa maamulka ay arkeen way ii waceen way ila hadleen waxay dhaheen waxaan rabnaa in teamka aan ka fasaxno ma aysan joogin markaas teamka wuxuu u baahnaa markaas in dadka joogan dadka lagu sii laabo oo loo sii dhabar adeego maysan waqti xaadirkaas ay joogto teamka in Elman oo dadka laga kala dirmaysan laakiin balse way sababta qofka fikradu leeyahay laakiin ana hadii la tashan lahaa misna dadka la tashan lahaa waa ka celin lahaa laakiin balse ma aysan dhacin qof walba fikrad ayuu leeyahay 19 sano kadib ayaa Elman ka soo tagtay maxaa xilligan ku soo beegaa isleedahay iyo koobkii kula guuleystay waayahay Elman xagga dibadda iyo xagga gudaha runtii wax badan ayaan ka dareemi karaa way sababtoo ah wax badan ayaa guul la soo gaaray xagga dibadda laakiin guul ma ka soo gaarin laakiin waa matalay kooxda runtii anoo kabtan anoo ciyaartoy ah runtii gudaha markaan aan dhaho gudaha waxaan kala guuleystay kooxda waa 2 horyaal iyo hal Super Cup iyo hal General Daoud iyo 4 geesood oo 2 mar la qaaday koob 4 geesood kii wax lagu qaaday
iskool bulisi lagu dheelay iyo kay lagu dheelay garoonka horyaalka koonis oo markaas oo dhooba ahayd iyo koob munaasabadooyin badan aan kala qaatay maxaa isleedahay marka hadda ilman ka soo tagtay fariin celinta ka soo gaaraysa ciyaartooyda waqti fiican ku soo wada qaateen naadiga ilman wallahi fariin celinta ii soo wada gaaraysa wallahi waxay kala meeysan dhahayaan way sabtaa kabtan way u keenay ciyaartooyda qaabka aniga eewil waxay u haysteen kooxdeena aniga iskayga ina aagtay laakiin markii ciyaartooy badan ila soo xiriirtay soo bixin amuuji kuji asku aragnay xaaladda meesha ka dhacday xaaladda aan tiimka laga diray xaaladda aan ugu tagay marka uu sheegay way garasadeen way sabto aniga ciyaartooyda naadiga joogto way aniga respect iga mudan yihiin way sabta kabtana aan soo waa wax badan oo soo sheegi jiray wax badan ila soo qabteen wax badan garabkayga soo dheelayeen wax badan ay ixtiraamayeen ana ixtiraam aan siinay runtii aan ciyaartooyda agteeda ku weyn tahay laakiin balse waxa meesha communication ka halaabay waa macalinka iyo maamulkii aniga laakiin ciyaartooyda iyo magacaas aniga ixtiraam iyo waxaan waa sharaf aan waaya wayahay maxaa isleedahay hadda waxa ku bilaabanaya waji cusub oo aad ku qaadanayso kooxda kubadda cagta Higan maxaa isleedahay waayaha Higan iyo sanadkan bilowga runtii waxaan ku rajaynayaa dulaan gaarsi waayaga cusub hadda oo shalay daafur fiican ugu bilowda dulaan karaan noqdo waxaan ku rajaynayaa kooxdeeda Higan aan sanadkan aan ku suganahay dulaan gaarsi intaan sports dimarto in ay ku qeyb aan ku soo gabagabay dulaan karaan noqdo taas awood Allah iskale tan kale waxaan ku rajaynayaa dulaan karaan noqdo in Higan sanadkan horyaalka iyo General Daawudka Super Cup in la qaado dulaan karaan noqdo taasna ay gasho taariikhda dulaan karaan noqdo ويا maxaa isleedahay marka hadda kooxda waxa ku soo biiray dhowr ciyaartooy oo sanadkii la soo dhaafayna dekada kula soo guuleystay koobka horyaalka Soomaaliya gaar ahaan kabtanka hadda cusub Cabdiciis Atoosh misleedahay sanadkan dekada Higan way dhameystiran tahay marka la fiiriyo boos kasta oo ay garoon ku soo galayso waa maasan tahay qaliil horta dhameystir ilaaha dhameystirna la qof bini aadam dhameystirna way hadda Higan waqti xadarkan la joogo shal ciyaar aan dhilnay dulduleelada iska jireen walow ay guusha meel ay u socotay oo 4 gool aan helnay xagga ilaa uu maad celinayna laakiin kooxda ilaa hadda ma fadhiso way sababtoo xaysan ku fadhinin boosas waa loo baahan yahay way sababtoo substitution fiican waa haysta laakiin line upki inuu soo fadhiisal rabaa sababtoo wili line upki waxa ay ka maqan laakiin balse ciyaarkooda lagu fahmi karo in 2 dhiisho 3 dhiisho 4 dhiisho 5 dhiisho markaas ayaa dareemi doonta laakiin balse wili kooxda waxa ay ka dhiman ayaan dhihi karaa ani way sababtoo qof ay arag garoonka way sababtoo ciyaaryahanka ku fadhiyo ciyaaryahanka roose ka qaatam ciyaaryahanka laba jaal ka qabo ciyaaryahanka akinis waa inuu ciyaaryahan u dhigmo inuu soo yahay way sababtoo 18 ka joogo 18 lagu oo runtii lagu kalsoon yahay laakiin balse ciyaaryahanka ama maamulka ama macalinka wuxuu raadinaa ciyaaryahanka ku joogo ciyaaryahanka si tayo fiican uu raadinaa taas waxa loo yeelaa waxa way kooxda inay is haysato ay la sameeyna laakiin ciyaartooyda hadda joogto runtii waa lagu aamin qabaa hadda loo aamin qabilaan lama soo xuli leen laakiin balse dulduleelo iska jiraan waa loo baahan yahay ciyaartooy oya hadda marka fiirso Niaz Ronaldo Yasin oo sanadkii la soo dhaafayna ilmana ka wada tirsanadeen oo ahaa gool dhaliyay sanadka hore ugu sariiray Soomaaliya ayaa ku sugan kooxda kubadda cagta Higan shalay 3 gool ayuu dhaliyay tani maxay tusinaysaa maadaama sanadkii la soo dhaafayna isaga uu gool dhalinta ku soo guuleysay reerka Soomaaliya tan waxay tusinaysaa dadweynaha ama shalay kooxda ku soo tagay hadda kooxda joogaba kooxda joogo horta runtii way horta isha u baahaneed way qabsatay horta aan dhihi karaa runtii way sababtoo nabarkii oo kooxda u baahaneed way haystaa way sababtoo nabarka kooxda u baahan ma kooxda hadii wax difaacdo waa inay wax dhalisaa waxay dhalisana inay difaacataa runtii booski lagu baahnay waa ka soo baxday booska difaacashadani runtii waa ka soo baxday 100% way sababtoo goolahayo waxa ku jira Mustafa ayaa ku jiro Sharmaak ayaa joogo asina u dhigmo Mustafa amal u dhigmo ayaa joogo anaga joogna Xasan Siido ayaa joogo ciyaartooy Axmed Saqiir ayaa joogo cali ma ciyaartooy shalay dheelistan ciyaartooy kala dhacda ma runtii markii la fiiray xagga dheelid ahaan laakiin nasiibka ayaa Messi yeelo runtii Nianzi waxaan dhihi karaa kooxda dirtay waa ku gardarootay kooxda u maadan runtii positionkeeda waa heshay aan dhihi karaa Robert Menage oo saaxiib dhawna wada tihiin waqti fiican ka soo qaadatin xagaagitay kooxda kubadda cagta ilman ayaa kooxda booliska hogaaminayay Higan marka fiiriso qalad ciyaareed iyo shaxda garoonka soo galayo hadda maxaa isleedahay maxaa isbedelay sanadka hore sanadka maadaama hadda Higan hogaaminay runtii horta macalinka Elman markuu joogay shax ayaan dheeli jirnay runtii waa wax badan oo isla tashin jirnay saaxiibna waanahay runtii qof oo macnaha oo friendisna oo aad isku fiican waanahay way sababtoo isla tashana way sababtoo qofka way arag waxa yahay in loo la tashto haduusan asi macalin waaye fikradiisa iska leh laakiin aniga la tashi oo kaliya ay leh laakiin ma kullihi waxa sameeyay ma kullihi way sababtoo saan waxay ku haboon tahay tusa haduu qaato oo qaato haduusan qaadin kullihi way sababtoo macalinka meesha asaga go'aanka iska leh laakiin balse macalinka runtii xilli ciyaareedka la soo dhaafay wuxuu dheeli jiray Elman
4-3-3 ayuu dheli jiray laakiin sanadkan wuxuu la imaaday laba qaab ciyaareedkii hore Elman ku dheli jiray iyo qaab ciyaareedkan hadda qaab ciyaareedka oo hadda oo la imaanay waxa waaye waa 3-5-2 runtii oo shalay wax badan aan dheelin ilaa walow ciyaara inta roosana laga qaadin maana inta kale inta ka horeysa asaan dheelin 3-5-2 aan dheelinay laakiin balse markii systemkii oo dhamaaday oo roosana laga qaatay marka la tashi aan sameynay ciyaartooyda kale la tashi aan sameynay aan waxaan u bedelanay 4-4 aan u bedelanay hadda waxaa sheegtay in kul ciyaareedkan aad soo gabagabeynayso waayihii kubadda cagta maxaa ku qorshaysan والله waxay qorshaysan dulaan gaarsiyo xil ciyaareedka dambe dulaan gaarsiyo oo kulli nafta hadii uu sii jirto dulaan gaarsiyo waxaan jeclahay wixii markaas dhici doona horta Allah waclam laakiin aan nafsad aanteyda amisan aan jeclahay ina dhanka macallimada aan u jeclahay dulaan karaan noqdo wali oo meesha rabay aan joogin oo wax badan iga dhiman yihiin laakiin balse waxaan ku rajaynayaa dulaan gaarsiyo 2019 ilaa 2020 wixii meesha markaas ay noqoto hadii nafti ugu jirto ina meesha ka baan ku siiyo oo liidhiin waa duqoodi garoonka ka baxay liidin anoo markaas oo garoonka ii baahan inaan iskaga leexdo way sababtoo ah qofka marka la jecel yahay haduu meesha ka leexdo dadka markaas waxay ku leeyihiin ihtimaam iyo ixtiraam ku siinayaan laakiin hadii meesha ku sii dhagnaato way adag geed ka baxmatid meesha way sababtoo dadka banoon soo dhili jiray dadka ana meesha keenin ka baxeen ani markii ina meesha joogo jiilka soo baxayna jidka u baneeyo way hadda ka heegin ahaan ciyaartooy ka tirsan tahay maxaa sanadkan ku muuqdo horyaalka Soomaaliya idinka ahaan والله يعني هذا وجه في عنا نوقف بلا نحقي موضة دولا كره ناخذه إن كستو شل عيارتكو ديل وحي كلا وحيالا كلا على كل مدون الله أعلم لكن أنا وحن رجوينا إنه هوريال كخاله laba farin ayaa soo dhacaysa midna waa tii taageerayaasha ciyaartooyda waqtiga fiican la soo qaadatay Elman midna waa mid cusub ee hadda taageerayaasha u dirayso heegin runtii taageerayaasha horta wax badan waqti badan aan la soo qaatay runtii taageeraal runtii aan ma dhihi karo taageer ma dhihi karo waxaan dhihi karaa walaalkii la dhashtay ama walaashi ila shatay aan dhihi karaa way sababtoo taageerayaal runtii mar walba iga warqaba habeen ahaato maalin ahaato waqti walba ahaato oo runtii i garab taagan maxaa kugu soo kordhay maxaa saan idahaya oo runtii iyo hadaan jirana ila jirana hadaan caafimaad ila qabay ayaan dhihi karaa taageer ma dhihi karo waxaan dhihi karaa walaal ayaan dhihi karaa taageerayaasha hadda u imaadeen runtii inkastoo shalay garoonka wax yar ay ku yaraayeen laakiin waxaan ka codsanaa inay garoonka soo buux dhaafiyaan runtii taageerayaasha aan ka soo tagay iyo taageerayaasha hadda u imaadeen same way balse laakiin wali ina waxaan rabaa dulaan gaarsiyo in oo taageerayaasha hadda aan walaalka aan ka dhigtay inay booskood eegana ay buux dhaafi doonaan dulaan karaan taasaan ka codsanaa wayahay dawladaalkaasina waxa uu ahaa kabtankii hore kooxda kubadda cagta Elman Xasan Carro Balbay oo dhawaan ku biiray kooxda kubadda cagta Hegan isagoo wax badan ka sharxay horyaalka Soomaaliya sanadkan qaabku ku bilowday in natiijadii ay ka gaareen kooxda kubadda cagta Elman isaga waqti fiican ku soo qaatay hadaba warbixino kale ayaan soo socdo barnaamijka xindaabka real hadii aan ka gudubno natiijooyinka horyaalka Soomaaliya iyo falanqayntii kabtanka kooxda kubadda cagta kabtankii hore kooxda kubadda cagta Elman haddana ka tirsan Xasan Carro Balbay dhinaca kale kabtankii hore kooxda kubadda cagta Hegan oo hadda ku sugan dalka Turkiga Jibril Xasan Friid ayaa fariin amaan u soo diray kooxdiisa kadib markii ay ku bilaabatay bandhig wanaagsan horyaalka dalka Jibril Xasan Friid waxa lagu xasuustaa 3 sano la soo dhaafay inuu booska labaad ka gali jiray goolalinta horyaalka Soomaaliya isagoo hadda dalka Turkiga jooga ayuu u soo diray fariin ku saabsan ciyaartooyda iyo macallimiinta guusha weyn ee ka gaareen kooxda kubadda cagta Elman wuxuuna yiri halkiina ka sii wada dadaalka ku aadan inaad horumar wacan aad ka gaartaan tartamada iyo soo kale ka qaybgalka sanadkan 2017-2018 Jibril waxa lagu xasuustaa inuu goolal badan ka dhaliyay kooxaha kubadda cagta Banana Sport Club iyo kooxda ay shalay guul ka gaareen Elman hadaba hadii aan ka gudubno wararka natiijooyinka iyo soo kale warka Jibril Xasan Friid ku saabsanaa hambaliyada ku aadan in kooxiisa uu soo diray dhinaca kale waxaa dib loo soo celiyay kooxihii barsimaadkii caanka ka ahaa kubadda cagta gaar ahaan magacii hore mabacada qaranka iyo soo kale Batroolka todobaadkan waxaa lagu guuleystay in dib loo howlgeliyay kooxaha Batroolka iyo soo kale kooxda kubadda cagta mabacada qaranka inkastoo kooxahan ay ku ciyaari jireen magacyada FC Benadir iyo soo kale kooxda FC Safana iyo soo kale FC Benadir sanadkan waxay ka soo dalaceen heerka labaad iyagoo u soo gudbay heerka koowaad FC Benadir waa kooxda sanadka hore ku soo guuleystay magaca mabacada qaranka magaca ayaa loo bedelay sanadkan magaca mabacada qaranka halka kooxda kubadda cagta Safanana magaceeda loo bedelay Batroolka hadaba arintan maxay ku soo kordhinaysaa sportska gaar ahaan kubadda cagta waxa ila falanqeeyaasha sportska gudaha Cabdullaahi Faarax Daguuri iyo soo kale Cabdiraxiin Kismaayo Cabdullaahi Faarax marka fiiriso dib soo nooleynta kooxii hore ee qaranka mabacada qaranka oo kale iyo Batroolka oo kale Munishibi oo kale maxay Soomaaliya sportska ku soo kordhinaysaa
runtii isboortska dalka waxaan u maleynayaa waxyaabihii ka maqnaa inuu dib u helayo hore waxaa u timid kooxdii gaadiidka sidoo kale haddana waxaad imaatay kooxdii madbacadda waxaan rajaynaynaa inay minishibi iyo batroolka noo haray runtii ay kusoo darsamaan waxaad u maleysaa in isboortska dalka runtii uu yahay meelaha ugu muhiimsan ee dhalinyarada maanta sababtoo ah dalka 75% waa dhalinyaro muhiimadda ugu ballaaran oo dhalinyarada dalka lagu soo jiidi kara nabadane runtii waxaa qayb ka ah sportska in la dhiirigeliyo sportska la sponsor gareeyo runtii loo sameeyo liidaro fara badan oo sportska wax kule sababtoo ah madaxda dowladda qaranka qaarkood waxay ahayeen ciyaartooy fara badan oo runtii usoo dheelay runtii waxaad u maleysaa muhiimadda ugu ballaaran ay leedahay waxay tahay in kor loo qaado muuqaalka rasmiga ah ee muqdisho waxaana ka qayb qaadanayo runtii mas-uuliyiin dowladda ah iyo runtii dhalinyaro sports oo u soo dheelay kooxda waxaad u maleysaa kooxda FC Banaadir runtii inay koox runtii u qalintay runtii in magacan la siin karo sababtoo waxaan ogahay qaabkii ay Serbida ay ku soo qaaday iyo qaabkii quruxda badnaa ay koobkii General Dawood ay qayb qaadatay ee heerka fiican u tagtay runtii waxaad u maleysaa waqtigii ku habooneed in la siiyo laakiin sidoo kale waxaan rajaynaynaa sida minishibiyo iyo batroolka ay kan inay dib u soo laabtaan marka fiirsa hadda Genyo kale waxaa la wareegtay qarashka ciyaartooyda iyo sida sheegay macallimiinta iyo agabka kooxda u baahan tahay wasaaradda ee hoos imaanayso hadda maxaa is leedahay inay hadda ku soo biiraan bacda qaranka oo kale batroolka oo kale minishibiyo la sheegay in la soo celinayo dhadhan noocee ay yeelaysaa horyaalka Soomaaliya iyadoo ognahay waxool iyo gaadiidka iyo dekedan inay joogaan aad iyo aad waxaad u maleysaa marka isboortska dalka naadiyaasha inta badan way imaadeen inkastoo uu ka sii fara badanayo sidaan u jeedno hadii naadiyaasha inta badan dib loo soo nooleeyo kooxda Genyo oo runtii aan ognahay inay sal u ahayd dhaqaale xumada runtii baahsan inay la baabaaday runtii hadda gacanta lagu qabtay waxaan rajaynaynaa kooxda Genyo waxaan qabaa waliba aan horena u qabay waxay ahayd kooxa ugu banooniga qurxan isboortska dalka marka la daawanayo kooxda kaliya Arsenal ama Barcelona dalka lagu tilmaami karo inay ahayd waxay ahayd kooxda ugu magaca fiican marka ay fiirso sababtoo ah ma jirin ciyaartoy ajnabi ah kooxaha weyn oo 5ka ama 6ka ah oo sanad walba ku xisaabtamo 6 ugu horeeyay 5 ugu horeeyay waxay kamid ah kooxda aan ajaanib keenin ciyaartoyda dalka faa'iido ugu ballaaran siiso wali waxa joogto runtii ciyaartoyda hore Genyo inkastoo tiimka qaar kamid ah ay ku biireen tan waxay qayb qaadanaysaa kooxda Genyo hadii ay dhaqaale runtii ay ku maareyn karto ciyaartooydeeda iyo maamulkeeda runtii waxaan qabaa in ay dib u soo laaban doonto markale Genyo Cabdiraxiin soo markale soo dhow sidee u aragtaa dib u soo nooleynta kooxihii qaranka dalka ee bariisamaadkii ciyaartooydii hore loo aqoon jiray maxaa is leedahay hadda toddobaadka bacda qaranka dib u soo laaban waa tahay maxamed xuseen qalile in kooxihii hore xilliga bariisamaadka magacyadii horyaalka koowaad dheeli jiray in dib u soo laabtaan waxay ka qaadanaysaa in horta taariikhiyan isboortiga Soomaaliyeed inuu soo laabtay inagoo og in haddaba kooxaha dheela ay aad u wanaagsan yihiin mid kaliya meesha ka maqneed markii kooxaha dib loo soo nooleeyo soo kordhin karta waxay tahay kooxihii hadda magacyadii hadda jiray kooxihii taageerada waxay dhalinyartii wixii hadda soo jiil qaaday in odayaasha hore inay ka maqnaayeen balse dadkii hore markay maqlaan madbacadda minishibiyo batroolka inay soo kici doonaan ka qayb qaadan doonaan inay kicin doonaan taageerayaasha iyo dhiirigelin u sameyn doonaan kooxaha anoo og oona arkay wax badan odayaashii hore in isboortiga wax badan saameyn ku lahayn balse markii hadda ay maqlaan in kooxihii ay wagaas taageeri jireen dib loona soo nooleeyay dabcan waxay qayb ka qaadanayaan horumarka isboortiga ee dalka ka jira hadda markaa fiiriso horyaalka Soomaaliya oo kale waxaa joogta kooxda kubadda cagta xool gaadiidka dekada haddana waxaa dib loo soo celiyay kooxda kubadda cagta Genyo wasaaradda howlaha guud ee ballan qaaday iyo hadda kooxda kubadda cagta ee toddobaadkan magaca laga bedelay FC Banaadir loo bixin bacda maxaa is leedahay maqnaashaha batroolka iyo minishibi hadda ka hormar horta minishibiya toddobaadka hadda tagay hadda filayaa in gudoomiyaha gobolka Banaadir Abdi Maxamed inuu ballan qaaday in hawlihii iyo abaabulkii uu socdo oo kooxda minishibi dib lagu soo nooleeyay mar haddii intaas soo dhameystirmaan batroolka iyadana dabcan jidka ku soo jirtaa Soomaalida waa dad ku dayasho mudan dabcan markay arkaan in kooxihii hore Soomaaliya wasaaradaha kale in boorka soo jafi doonaan ayaan kooxihii hore sii jiray dib u soo nooleeyay loolan waxaa bilaabanaya horta midda kaliya ay soo kordhinaysa waxay tahay ciyaartooydeena way jireen iskooda u dheeli jireen waxaa ognahay ciyaartooyda qaarkood inay transport soo bixin jireen kabaha ay soo iibsan jireen laga yaabo in maaliyadaha kooxda in meel una ka helaan balse hadda markii sponsor oo wasaaradda ay kooxda leedahay ay hoos tagto sponsor ay u tahay dhaqaaliya ciyaartooyda agabkooda xiran ay dhiibayaan ciyaartooyga emotional dabcan dareenka wuxuu ku dheelaa dareen aad u wanaagsan isagoona og in laga dambeeyo oo xuquuq uu leeyahay
qof xisaabtan oo balse markuu kaligiis dheelay macnaha dareenku ku dheelay markii la kafaalo qaado dareenku ku dheelay isku mid ma dabcan waxa hada farqi u dhaxeynaa markii saddex sano soo dhaafay horyaalka Soomaaliya iyadoo ognahay in magacyo kale loogu ciyaaray hada magacyadii hore qaranka la soo celiyay mid soo kordhina waxay tahay marka hore kooxaha qaar kaliya sponsor haystay ama hay'adaha hoos tagay hay'adaha dawladda qaar kamid ah balse haatan kulli markay sponsor haystaan xifaaltana bilaawna waxa ognahay horyaalka kooxaha qaar in loo xaglinayo oo awood sponsor leh balse haatan koox walba sponsor haysata marka kooxaha qaar waa lagu tashin jiray dabcan horyaalka magacan u dheeli jireen inaga og in kooxaha sanadii la soo dhaafay iyagoo laabteen heerka labaad oo laabteen haddana farsamo qaarkood isku joogeen balse hadda markii dib loo soo awaabulo sponsor ay helaan xifaaltan adaga bilaawanaya iyadoona horyaalka magaca laga bedelay oo sanadkan sponsor u leeyahay dabcan wax badan isbedeli doona iyadana waa u joogna wali waxaad daawanaysaan barnaamijka xandaabka ciyaaraha wuxuuna idinkaga imaanayaa Goobjoog TV waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibada baraha bulshada naga daawanaya gaar ahaan barteena Facebook waad ku mahadsantiin waqtigiina waan tixgelin doonaa aragtidiina ku aadan kommentida noo soo direysaan dhinaca kale todobaadkan iyo todobaadadii hore la soo dhaafay ba waxaa kooxaha ku kala biiray ciyaartooy badan kuwaas oo qandaraasyo kala duwan u saxiixay haddaba laacib macaani oo sanadkii la soo dhaafay kooxda kubadda cagta dekada kula guuleysay horyaalka Soomaaliya ayaa ku soo biiray kooxda kubadda cagta Elman isagoo la shaqeyn doona macalinkiisa hore Cabdijoon oo kooxda hogaaminaya haddaba arintan muxuu ku soo kordhin karaa laacibka lagu magacaabo Axmed Xasan Macaani shax ciyaareedka naadiga kubadda cagta Elman labada sano ee soo socota ciyaaryahankii hore ee kooxda dekada Axmed Xasan Macaani ayaa si rasmi ah ugu biiray naadiga Elman oo kamid ah kooxaha heerka koowaad sanadkii tagay 2017 hanatay koobka Soomaaliya Super Cup iyo sidoo kale koobka sanadlaha General Daawud Cabdulle Xirse ciyaaryahan Macaani ayaa bilii la soo dhaafay waxaa la xiriirinayay kooxda booliska Ahegan inuu ka mid noqday laakiin isniintii la soo dhaafay ayuu si rasmi ah ugu mid noqday kooxda kubadda cagta Elman kubad burburiyay hore kooxda Saxafi ayaa qalinka ugu duugay naadiga jaalayaasha Elman heshiis 2 sano ah kaas oo ku eg sanadka 2020 Macaani oo ka hadlay ku biiritaankiisa kooxda Elman ayaa warbaahinta ku yiri waan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo Elman waa koox magac weyn waxaana u soo ciyaaray ciyaartooy badan oo dalka wax u soo qabtay marka la fiiriyo qaran ahaan iyo koox ahaanba waxa ka soo baxay macallimiin kala duwan la soo shaqeeyay sida macalinkaygii hore kooxda dekada Cabdulle Maxamed Cabdijoon oo hadda kooxda hogaaminaya iyo tababarigii hore kooxda dekada Yuusuf Cabdinuur Cali isagoo macallin iyo ciyaartooyba ka soo noqday kooxda Elman ayuu yiri Macaani inaan marka la midoobo macalinkaygii hore Cabdijoon ayaa dareen kale farxad ah waxaan rajaynayaa inaan si wanaagsan ula qabsado kooxda Elman oo sanadkii tagay ku guuleysatay labadii koob ee dalka gaar ahaan koobka General Daawud iyo Super Cup sidoo kale kooxda waxaa ku sugan ayuu yiri Macaani ciyaartooy badan kuwaas oo tayo iyo waxtarba ku leh kubadda cagta dalka waan ku faraxsanahay inaan soo caga dhigto naadiga Elman oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dalka waxaan taageerayaasha jamaahiirta Elman u sheegayaa in wixii laga bilaabo xilligan aan ka mid ahay kooxda Elman laacib Macaani ayaa kooxda dekada kula guuleystay horyaalka Soomaaliya kul ciyaareedkii 2016-2017 dekada ayaa 19 sano kadib ku guuleystay xagaagaas wuxuuna qayb ka ahaa ciyaartooy door wacan ku lahaa tan iyo markii kooxda ka qayb gashay kul ciyaareedkii dhamaaday horyaalka inkastoo laacibkan uu dhaawac kaga maqnaa bilihii la soo dhaafay sanadkii tagay 2017 kusoo biiritaanka Macaani ee kooxda Elman ayaa ku soo aadaysa xilli kooxda dhawaan uu safar ka aaday xidiga qadka dhexe Ciise Manhaaj waxaana Macaani kooxdiisa cusub uu u xiran doonaa nambarka 4 waxaa soo dhaweeyay jamaahiirta kooxda kubadda cagta Elman faa'iido balaaran ayuu runtii Macaani ku soo kordhin doonaa waxaan ognahay muuqaal walba oo ciyaartooy ah oo dalka uu ku leeyahay tiimkiisa asoo line up ka haysto mushaar fiican ka haysto waqti joogto ah ku haysto oo haddana ka tagaa ma aha tiimkii inuu necab yahay ee muhiimaddu waxa waaye wuxuu rabaa inuu fanaanad kala xirto waxyaabahaas ku kala gedisan marka ciyaartooyda dalka marka Macaani waxaan qabaa inuu yahay runtii wuxuu ahaa sanadka hore ciyaartooy ka dhaawacmay kooxda dekada runtii markuu dib u soo laabtay inkastoo uusan noqonin ciyaartooy fid ah oo haddana ciyaari karo haddana wuxuu la dabaaldegay koobkii runtii waa ciyaaryahan muhiim ah ee ku xisaabtami karto tiim fiican tagay macallin runtii aan isleeyahay wuu la shaqayn karaa runtii ayuu tagay maxaa isleedahay Cabdijoon oo kooxda dekada ku soo wada shaqeeyeen waqti fiican ku soo wada qaateen inay hadda kula midoobo kooxda kubadda cagta runtii macallin Cabdijoon runtii waa macallimiinta
u baahan tahay xitaa xulka qaranka dalka xitaa kaliya naadiyash kaliya uma baahno markii aan dekada laga buriyay oo dekada uu ka tagay waxaan isleeyahay runtii wuxuu ku biiri doonaa xulka qaranka dalka oo macallin runtii dhan walba ku fiican ciyaartoy soo noqday ciyaartoyda dalka ku fiican midda kale qaabkii quruxnaay oo labada koob u qaaday runtii wuxuu ahay inkastoo horyaalka qaybihii dambe kulamadii dambe oo runtii uu aad u gaabiyay haddana waxaad u malaysaa labadii koob جنرال داود سوبر كابكا إنه معلن كور سوق عيا مقال كيسوق بدن إن شاء الله وحنا داون دورنا هوريال كعصب. وياي عبد الحين مركز سوق كوب سوق إيه السوق هذا معاني كبيرتان كيس نادي علم. دبا سوق سومالي سنة كان هرمر بدن سمي إذا عيار تفيد أقوى وين سنة كي بدن تكلقات هاي إن عيارها معانا وحديه كنا واسد ماتيجي ومورينهو إن معنا عبد جون قاب عيارات كيسوي قانون حديقان وهرس وتوبري in mar labaad u dalbado hadana kooxda jooga oo keena dabcan taas waxay ka dhigantaa in macalinka ciyaareenka tayadiisu og yahay taasna uu soo qaatay sida waa Mourinho oo kale Matic in kooxda joogay ee Chelsea ku soo tababaray haatana Man United tababaro waa maxaas leeyahay muxuu ku soo kordhin karaa macaani shaxyaareedka kooxda Elman dabcan Elman iyadoo sanadkan xidiga aad u wanaagsan la soo wareegtay hadana waxa dhihi karnaa dabcan huwanka kooxda Elman dabcan asna dhankiisu ka qaadan doona dabcan 12 ciyaaryahan way kooxda isna kaalin buu ku leeyahay dabcan laakiin kaalintu wanaagsan uu ka qaadan karaa awdiyal warbixintaasna waxay ku saabsaneed falaqayn ku saabsan muxuu xilligan ku kordhin karaa laacib macaani shaxyaareedka nadiga kubadda cagta Elman oo 2 sano u siixay waxaa aad u maasan saaxiibadeena Cabdiraxmaan Kismaayo iyo sidoo kale Cabdullaahi Faarax Tabuur oo toddobaadka hore marti ku ah xindaabka iyagoo si weyn ugu garfeeyay arrimaha ku saabsanaa suuqa kala iibsiga gaar ahaan xidiga dhawaan ku biiray kooxda kubadda cagta Elman iyo dib u soo nooleynta kooxihii hore Badroolka iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Mabacda qaranka iyo xilligan waxay ku soo kordhin karaan horyaalka Soomaaliya mise kubadda cagta dalka dhinaca kale waxaa la ciyaari doonaa garoomo ka tirsan horyaalka Soomaaliya laakiin hadda goolelinta horyaalka waxaa hogaaminaya laacibka lagu magacaabo Niyazi Ronaldo Yasin oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Higan laacibkan sanadkii la soo dhaafay wuxuu ka tirsanaa nadiga Elman isagoo bartamihii sanadkii tagay ee gaar ahaan bishii May ku laabtay dalkiisa hooyo Uganda sababo ku aadan iyaga iyo sidoo kale maamulka kooxda kubadda cagta Elman markay iskhilaafeen laakiin laacibkan waxaa ku guuleystay in dalka dib ugu soo celiso nadiga booliska Higan isagoo hadda 3 ley ka dhaliyay kooxiisa hore Elman arrintaasna waxaa soo dhaweeyay jamaahirta kooxda kubadda cagta Higan maadaama ay heleen weeryahan aad u fiican iyo sidoo kale xidiga tayadooda aad u sareysa dhinaca kale kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta Elman iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Higan waxaa laga diiwaan geliyay arrimo badan oo ku saabsan labada dhinac haddaba xaqiiqooyinka ugu muhiimsanaa ee kulankan laga diiwaan geliyay waxaa ka mid ah Niyazi Ronaldo Yasin ayaa kooxdiisa hore Elman ka dhaliyay 3 ley isagoo sidoo kale noqday laacibkii ugu horeeyay xagagan dhaliya wax ka badan 2 gool sidoo kalena waxaa loo diiwaan geliyay inuu noqdo laacibkii ugu horeeyay 3 gool ka dhaliya xagagan horyaalka dalka Cabdiciis Catoosh ayaa lagu sharfay kul ciyaareedkan inuu noqdo kabtanka koowaad ee naadiga kubadda cagta booliska Higan laacibkan hore waxa uu soo ciyaaray kooxaha kubadda cagta dekada LLB Genyo iyo sidoo kale Horseed FC Muqdisho iyo gobolka Banaadir isagoo dhammaan ku soo wada guuleystay koobka dalka marka la fiiriyo horyaalka Soomaaliya koobka General Daud iyo sidoo kale tartankii gobolada ee sanadkii 2010 lagu qabtay Garowe iyo marka la fiiriyo koobka General Daud iyo Somali Super Cup isagoo la soo qaaday kooxo kala duwan xidigii hore Genyo ayaa ku soo bilaabay saf ciyaareedka naadiyaasha Higan iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman xidigaha laga soo xulay mise saf ciyaareedka waxaa qayb ka ah Mustafa Nakuja oo ah golaha kooxda kubadda cagta Higan Cabdiciis Catoosh oo kabtanka koowaad ee kooxda Higan ah waxay ku riimaadeen xidigii hore ee waqti fiican ku soo qaatay naadiga LLB Genyo ee kala Maxamuud Cabdinuur Mayman Abdulqaadir Ninja Abdulqaadir Dandi Omar Sid Ali iyo sidoo kale Cabdullaahi Muxudiin oo iyagana sanadkii 2016 ku soo wada guuleystay koobka General Daud iyagoo hadda ka tirsan wixii ka dambeeya kooxaha Higan iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Elman kabtankii hore Elman Xasan Cali Roble Bay ayaa 19 sano kadib ka hor yimid kooxdiisa hore Elman isagoo lambarka labaad u xiran kooxda booliska Higan laacibkan ayaa waqti fiican ku soo qaatay isagoo sanadkii dhamaaday 2017 kooxda Elman kula soo guuleystay koobka General Daud daafaca kooxda Higan Axmed Dayib Saqiir ayaa loo taagay calaamadii labaad ee casaanka horyaalka Soomaaliya kul ciyaareedkan laacibkan ayaa kooxda kubadda cagta Higan laga ganaaxay 3 kulan iyo lacag sida uu sheegay maamulka xiriirka kubadda cagta kadib markii uu qalad ku galay mid ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta Elman sidoo kale horyaalka calaamadii ugu horeysay ee guduudan waxaa qaatay laacibka lagu magacaabo Mursal Xuseen Aadan oo ah kabtanka naadiga Waxool
xidigaha kale ah xasan carro babay niaz ronaldo yaasiin iyo tababare robert mayanji oo u dhashay dalka uganda ayaa ka hor yimid kooxdoodii hore elman falanqeeyaasha iyo soo kale taageerayaasha ayaa sharxay elman inay u sahlaneed mise ay yaqaaneen saddexdaas shakhsi qaab ciyaaradooda mise qalad ciyaareedkooda markii la fiiriyo taasoo keentay in kooxda kubadda cagta Hagen ay goolal badan ka dhaliso shabaq ilaaliyaha kooxda kubadda cagta ee Elman Axmed Qaashe laacibka lagu magacaabo Samson oo u dhashay dalka Uganda oo sanadkii 2014 kula guuleystay horyaalka Soomaaliya ayaa lagu guuleystay in dalka ay dib ugu soo laabato kooxda kubadda cagta Hagen isagoo bandhigiisa la bilaabay kooxdiisana 4 gool iyo 1 ku garaacday kooxda kubadda cagta Elman حسن سيدة وهلولة أحمد حسن معاني يحرفديان عبد العزيز محمد عطوش أي سنة كلا صودا في كوح الدكتة كل سو جول استرالك الصومالية أي لابد أن نعقل عياري مركلا فريق عطوش يسوق له لاعب كلهم مع حسن سيدة ودافع كعيارة أي لو أركز في عيارات كناديجا هيجن هالك معانا وكرسي كذا وصل بلاد كوح بدأ عكت ألمن سكسو بضرب وحقيقيين كي هو بناء كوحها كبدأ عكت ألمن يسوق له كوح كبدأ عكت هيجن كلنكii saddexaad horyaalka Soomaaliya fasal ciyaareedka 2017 kulankan wuxuu ku dhamaaday natiijo ahaan 4 gool iyo 1 oo ay guush raacday kooxda booliska oo hogaamiyay tababaro Robert Mayanji ciyaartan waxa dhaxaadiye ka ahaa garsooraha caalamiga lagu magacaabo Xasan Maxamed Xaaji Xasan Baari waxa la shaqeynayay garsooraha kala Xamsi Xaaji Cabdi iyo garsooraha lagu magacaabo Mahad Maxamed Maxamuud oo ah garsooraha u diiwaan gashan xiriirka kubadda cagta qaaradda Afrika kan CAF iyo soo kale kan Soomaaliya waxaa jiri doona kulamo kale oo xiiso badan waxaa la ciyaari doona kulamadaas kooxaha kubadda cagta mabacada qaranka oo la ciyaaraysa kooxda kubadda cagta LLB Genyo halka kooxda lagu magacaabo Horseedna ay soo dhaweynayso kooxda kubadda cagta ee Bernard Sport Club dekadana waxay toddobaadka soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta gaadiidka waana kulamada ugu xiisaha badan ee hadda la sugayo inkastoo kooxda gaadiidka ay barbaro dhaafayso kooxda Batroolka halka dekadana ay guul ku furatay horyaalka Soomaaliya haddaba wax walba oo ka soo baxaan natiijooyinka horyaalka Soomaaliya qaabka loo kala sareeyo dhibcaha kala sareynta goolelinta iyo wax walba oo ku saabsan kooxaha suuqa kala iibsiga waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijka xindaabka ciyaaraha toddobaadka soo aadan hadduu heebeedmo intaan kulmi doono toddobaadka soo aadan anagoo isku duuban nabadgelyo